abbaara tobankii subaxnimo ee saaka ayaa mar keliya waxaa lagu warhelay inay badda Lughaye ku taal degmada Lughaye gobolka Awdal ay liqday 3 dhalinyaro ah hase ahaatee laga soo badbaadiyay qofkii afaraad oo isaguna ka mid ahaa arday goobtaas booqatay sida uu xaqiijinayo gudoomiyaha degmada Lughaye Abdullaahi Cali Sheekh Nuur oo goor dhaweyd khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiye waxaad si kooban nooga warbixisaa khasaarihii goobtaasi ka dhacay arintaas way jirtaa saaka waxa baarlamaanka ay tobankii subaxnimo yaa dhalinyar ka timid dugsigan secondary ee Gabeed oo u socday inay ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaraan dhalinyarta xarunta Lughaye oo xal safar loogu yimid waxay u tageen badda waqtigan ay leeyihiin joogna waqti hoogaayana badda daadad badan baa galo badda way kacsan tahay iyaguna dad cimilada badda garanaya ma yahayn marka afar kamid ah dhalinyartii ayaa halkii badda ku qaaday marka mid kamid ah waxa suura gashay in dhalinyartii kale ee reer Lughaye ay soo badbaadiso laakiin saddexdii kale dhalinyaro nasiib darro waa la badbaadin kari waayo toodii bay noqotay waqtigii waa dhamaaday waxaana loo hawlgalay sidii meydkooda lagu soo saari lahaa alxamdulillaah ilaa 12 doornimo ayaa lagu hawlanaa meydkoodana dhammaan waa la soo saaray dhalinyartaasna waxay ahaayeen arday dugsiga secondary ee Gabeed waxayna ka soo jeedeen tuulada la yiraahdo Fadhixun la yiraahdo marka dadkii halkooda waxa soo codsadeen in meydkii Fadhixun loo keeno salka ay ugu aasaan ambalaasada degmadan u dalanay oo 3 meyd lagu qaaday waanka adigoo soo koobaya da'dooda imse jir ayaa lagu qiyaasayaa hase ahaatee halkay ka soo jeedaan deegaan ahaan ma degmada Lughaye mise deegaanada ku hareeraysan هذا ينفع وحي حيان إلى لحية تونشيريو لو أتشيرين تود حيثي حيان وحا دقمدا بكي بيكا سوچي دائما وطولة فردحن لإلاحظو ودقمدا بكي كترفن نواه تولوين كحدود لولا دقمكو يالا برشاهانا دوسيقا سرية كبه دقمدا الغيات كدخ يالا يوچوغين si aanu haddaba dhankooga wax uga ogaano sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Lughaye dhalasho ahaan waxa ay ka soo jeedaan deegaanka Fadhixun oo iyadu ka tirsan gobolka Awdal maamul ahaan hoos timaada degmada Baki Maxamed Axmed Caateye waa maayirka degmada Baki dhankiisa si aanu wax uga ogaano ayaa waxaan weydiinay waxa uu ka og yahay dhankiisa arintaasi gudoomiye maxaad ka ogtihiin arintaas runtii arintaas saakan ogaanay in ardaydii boodhika ee dugsiga Gab ay arday fiisad ugu baxday degmada Lughaye ay jiraan bacdiyeed ay saakaba badda galeen bacdiyeedna 3 arday la waayay meydkiisa mar dambe mid la helay iyadoo labana la ilaa loo soo sheegay arintaasi markaan ogaanay maalaan ogeyn degeen inay nabad ka tirsan degmada laakiin mar dambe aan ogaanay arintaas markaan ogaanay waxaan kulay taasi uga diraynaa waalidiintii iyo arqabkii iyo dadka eheladu ay taasi uga diraynaa ilaa sheegay iyo raga siiyo iyagana Allah u naxariisto degmada iyada ka tagay 3 wiil dhintay baa oo Fadhixun bay ka tageen marka aad baan arinta uga taxsayna dadka iyo Somaliland waqti xaadirkan aan kula hadlayo wali ma la aasay 3 dhalinyarada wali lama aasin waa la keenay meydkooda Fadhixun waxa ku hayo aad Baki baa joognaa oo anagana mushkiladii daaqadka geystay ma wadnaa ku dhax jiraa waa la keenay laakiin xaflay xawaali lagu leeyahay saacadan dhanka kale ma jirtaa mas'uuliyiin ka socda degmada Baki oo ka qayb galaya aaska 3 dhalinyarada ay ku geeriyootay badda Lughaye مسؤولين كلام جوتانا جوجا مدحدي كلام دقودو مقيمين وارجيسي برضو مقيمين أنا ما أقول جرا يعني نبى أتابعني وحول هذاك ما كنت سوق غيره قاضي أقول كل حاجة أنا بعض الحالة يقول ليش كا إلا نسوي كلام ما يا رجال ما هو نسوي لما قاعد مرة بس شو إيه ما تعرف يا أبو كنت بدرس يبقى كتير يا أبو دكتور هذا شو كل بس كذا يوم كذا جالنا gudoomiye waxaad si kooban nooga warbixisaa daadadkii xoogana ka dhacay degmada Baki شيء أو 4 يقولوا سأسافر حكذا روبوين ده كده دقمة بكي كاس أو تدرس على داعي كل داعي دقمة يجيب يبدو روبوين كده بدري كده نقاش بيوم دمان بكي مادان روب كاسي وحوجي خسارة نفسها ما طلع ونبغى كل شيء ده فقاري ما يصير لا يعني
من ولا عندي حسن محمد أو عبدي ومغني هاي شيء ميتكيس ومغني هاي إن بقولال فأنا نفهم حولك إلا كيف بظهر وغيره هو عندي ميتك هذينا وهكذا بيستي بيرجي بقولي تاسكاسي أو سرعي يوجد بوقاضي بدنكي بستانة ده مسا دنك كله لا بدنكي بستانة ده مسا بيرهني عادي لا بستانة دي دو حوله وابقولي كوي كوسي حبسي برتيخي وغايتي بيرهني جيبون سوبر بلتغي خسارة وكلتي خابري سنالة دي على بور هبني وقولي بتقلب والله وحاجة أسفقاري وكينين غيب لا شد الفريين أما الله لا شد الفريين بارتا سودي قاضي صح إن شاء الله الله سمح الله يسوك من دونه على قدر يبقى ساعدوه دي واحدة مالين وما بنتي wax dhaawacay muu jiraa oo geystay roobadaas wax dhaawac oo geystay miyuu jiraa oo dadka u geystay marka xoolaha laga yimaado laakiin dadkii xalay khiyaaniyay dad way galeen dad qurxin dad yani garboyn ka dhacay dadkii way jitaa wala khasaaraha roobka reerowga ka tahay tasar waad mahadsantahay gudoomiye kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caateya oo khadka taleefanka iigu waramayay isku soo wada duubo ma aha markii ugu horeysay badaha Somaliland khasaaro noocan ah ay geystaan وجامع حسين جامع ضد شبكة وررك عالمي عمود نيوز بورما.